بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة خلقدن عنوان كيدو وحوية إيمان موقته فرصة سياسة أو أي معارض كليه. الحقيقة marka xaqiiqada iyo dhabta la waajaho ee meeydaanka saaka taala kolka laga reebo ra'iisul wasaarihii hore Saacid Faarax Garaad inta kale ee opposition-ka ahi war waa badbaado qaran xasab baa ka soo dhaxbaxay wuuna inaga badiyaa nimanka hawiye ee mucaaradka ah waa kow wuu inaga badiyaa Axmed Madoobe waa laba wuu inaga badiyaa Siciid Cabdilaahi Deni. horta mucaaradku waa intaa aan sheegay waa intii badbaado qaran ahayd iyo labadii nina kablalah ee lahaa farmaajo madaxtooyada ka soo igama muuqato markaa opposition-ka fursad siyaasi ah oo ay xasan kula dagaalami karaan. qodobka intaas ayaan ku dhaafayaa. alxaqiiqa kismaayo war baa ka soo baxay. warkii ka soo baxay mandate buu ahaa taariikh mucayiman. dowladda federaalkii way ka hadashay wayna ka jawaab celisay. ilaa iminka waxaan ogahay anoo ku sugan Muqdisho sidii ay uga falcelin lahaayeen mucaaradka Nairobi ku shiraya ama ay aqbalaad ula iman lahaayeen bay isku hayaan oo aan muuqan. maxaa wacay? fikir siyaasiya baan jirin. maxaa yeelay waa dad nafsi wada hayo oo nafsi ku buuxsamay. walooy anigu xasan sheekh ninka u hiilinayana maahi. xasan sheekh ilaahay baa og, ummadduna way ogtahay meeshaanu kala joogno. cundaahii go'ay baanu nahay. laakiin mar haddaan siyaasi ahay waaqicaan ka hadlayaa. war soomaaliyey iima muuqdo mucaarad xasan iska celin kara oo siyaasad iskaga celin kara. nimanku waa nimankii xasan ka soo dhex baxay. waraqoy qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa. alxaqiiqa qolada samata bixinta ah ee hawiye kolka laga reebo Saacid Faarax Shirdoon war xasan sheekh waa ka madaxtooyada saaran kala soo dega. haddaad garab rabtaan garab waa laydin siin. haddaydnaan kala soo degi karayn dadka dhibaatada ka daaya. waxa aan Saacid uga reebay Saacid badbaado qaran ma ahayn. hadda ayaa maalmaha iyo wakhtiga iyo duruufta iyo xaaladdu isu keentay. haddaydinaan kala soo degi karayn war dhibta naga daaya. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa. alxaqiiqa xasan sheekhna fariin iga gaadhsiiya. war haysmacaajsiin oo haysmahadin oo dalka waa lagu soo duulayay ilaa badbaadiya ha ku meeraysan. inay gacantaada ku dumayso anigaa huba. haddaadan la iman fikir saliima oo Soomaali u danaynaya. cidina kaa yeeli mayso. 30 sannadood baan sii joogayaa. cidina kaa yeeli mayso extension baan rabaa.
nimankan mucaaradkaa haddaad ka adkaatay bulshadii soomaaliyeed kama aadan adkaan xasanna waxaan leeyahay soo dhaadhacoo doorasho la garan karo oo ay dadku garan karaan niyow miiska keen muddo kuuma hadhin war qodobkaana xasan sheekh iga gaadhsiiya parallel government impossible waa waxaan dhacayn parallel government iyaduna one man one vote waa waxaan dhacayn war labaduba dhici maayaan dalku marxaladdaa isgoyskaa foosha xun ayuu horta taagan yahay cidda taagtayna waa la garanayaa xasan isagu waa power hungary inta cimriga ka hadhay buu rabaa inuu meesha joogo afkaar siyaasiya baan jirin hal abuur baan jirin waray qodobkaana intaasaan ku dhaafaya waxaan sugaaba waa wiigan iyo maalmahan soo socda iyo jawaabta nimanka ku shiraaya نيروبي الحقيقة ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب